eegnana iftiinka dayaxa waxa uu dhaliyaa ashqaraarka dunida ugu weyn nooleel cajiib ah ayaa badda gunteeda ka soo baxa marka ay ku dhacaan mawjaduhu waxa ay bixiyaan midab buluug ah waa aragti la arki karo mararka uu gobolku dhaco oo kaliya kow iftiinka ay sameeyaan noolaha badda ku jira oo muuqaal qorxoon u yeelaya badda hadaba laba noole iftiin marka uu mugdigu jiro saddex iftiinka dayaxa waxa uu dhaliyaa ashqaraarka ugu weyn ee badda gunteeda kulanka waa kalluunka waxa uu ishiisa hoosteeda ku leeyahay xuub ay gasho bakteeriyada iftiinka bixisa waxa la moodaa in iftiin uu bilig lahayn uu noqdo afar yaxas badeed iyo libaax badeedka waxa ay ku tiirsan yihiin iftiinka dayaxa mid ka mid ah muuqaalada ashqaraarka leh ee Great Britain waa Australia habeen xilliga guga ka mid ah oo kaliya ayaa muuqaalka la arkaa ayaa leeyahay 5 xayawaano cajiib ah oo dusha sare ee badda u soo baxa habeen walba oo si qurxoon iftiinka marka uu qabto badda ay qurux u noqonayso shantaasi waxyaabood ayaa badda habeenkii lagu arkaa oo iftiin qurux badan yeelanayso hadaba meel ku qoro shantaas dhanka kale hadii aan eegnana saynisyahano ayaa sheegay in ay markii u horeysay ogaadeen jawi atmosphere lamid ah kan koonkan oo aan ku noolnahay oo ku xeeran meere dhulka lamid ah waxa ay daraasaad ku sameeyeen duni kale oo loo yaqaano GJ 1132b taas oo 1.4 goor ka weyn dhulka noona jirta fogaan ah 39 sanad waa sanad iftiin ah sanad iftiin ama light year waa sanad iftiin ama light year ayaa ah halbeeg lagu qiyaaso masaafada uu sanadkii iftiinku jari karo marka uu dhex socdo meel maran wuxuuna halkii sanad iftiin la mid yahay 9.5 trilyan oo kilomitir daraasadooda ayay ku ogaadeen in meerahaasi uu ku gadaaman yahay dahaar ka samaysan gaasas noqon kara inay yihiin uumi ama maadada methane ama labada waxaana lagu soo bandhigay majalada The Atmospheric Journal tallaabadana ayaa loo arkaa horumar laga sameeyay baadi goobka lagu jiro in la helo noole ku nool meelo ka baxsan koonkan iyo in wax laga ogaado ama laga ogaan karo jawiga meerayaasha waxaase la sheegayaa in meerahaasi uusan noqon karin meel noole ka jirto maadaama heerkiisu uu yahay 370 degree centigrade way warbixinta kale ee afraad hadii aan si raaciyana saynisyahano ayaa sheegaya in joogteynta qaliinka dumarka lagu sameeyo marka ay dhalayaan uu cawaaqib ku yeelanayo horumarka uu jirka bini'aadamku sameynayo waxa ay qiyaas ku bixiyeen in kiisaska ku saabsan caruurta aan marka waa makaanka si haboon ugu soo bixi karin maadaama miskaha hooyada ay xiriir yihiin ay sare u kaceen min 30 kunkiiba sanadihii 60meeyadii ilaa 36 kunkiiba waqti xaadirkan su'aasha ay saynisyahanadu isweydiinayeen muddo dheer ayaa ah sababta aysan miskaha dumarka waqtiga inta la u kori karin arintaasi ayaa la xiriirinayaa ayadoo hooyooyinku ay hidisidayaashoodu u gudbiyeen gabdhaha ay dhalaan jiilka iyadoo oo dhinaca kalena caruurta dhalata marka ka dambeysa ay noqonayaan kuwo kubacsan oo caafimaad qaba isla ekaanshiyo la'aantaasi ayaa la leeyahay waxa ay sababtaa in dumarka qaar ay door bidaan in ilmaha lagu qalo ayaga oo ka cabsi qaba in ay umul raacdaan oo ilmuhuna ku dhimaan laakiin cilmi baarayaal ku sugan jaamacadda Vienna waxa ay ka dardar weerarinayaan in xaaladdu haddii ay sidaas ku sii socoto ay yaraan doonto tirada dumarka sida caadiga u foosha